subax wanaagsan saaxiibadaan ku saaxiibna janaalkana gundhiga wararka subax wanaagsan meel kastoo dunida aad ka joogtaan saakiin waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu waaweynaha ee Soomaaliya caalamka intiisa kale waa 6 bisha 8 sanadka 2019 saakiin qodobada ugu waaweyn ee warkayna subaxaad ku daawan doontaan saaxiibada waxaa kamid ah waxaa idiin soo gudbin doonaa xog buuxda kaga haya magacyada mas'uuliyiinta ku loolamaya ama tartanka ugu jira qabashada xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir yaa kamid ah shakhsiyaadka hadda ugu dhow ee suurtagalka in toddobaadka loo magacaabo xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir qabiil ahaan halkay ka soo jeedaan beelaha ay ka soo jeedaan tirada u tartamaysa xilkaasi iyo inta saaxiibo dhow la madaxda sare ee dalka Soomaaliya iyo qofka ugu dhow ee rajada ka qabeen xilkani loo magacaabo iyo macluumaadyo ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa waxa kaloo daawadayaal aad ka maqli doonto warkiina aad ku daawan doontaan oo kamid ah dowladda Soomaaliya waxay ka jawaabtay warkii shalay ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee ahaa in al-shabaab dhaqaalaha ugu badan ay kalaan ka daweynay magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadirna waxa ay beeniyeen in laga joojiyay safar dalka dibadiisa ku bixi lahayn xayiraadna lagu soo ragay warqadna laga dhigay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho qodobadaasi kuba kale oo ku saabsan xaaladda doorashada Jubbaland iyo amniga Kismaayo ay la wareegayeen markan ciidanka AMISOM gaar ahaan Ethiopia oo la isku raacay in amniga hoolka doorashada ka dhacay inay la wareegaan ayaa daawad doontaan u diyaar garooba barnaamijka ama wararkeena saaki oo dhameystiran inaad daawataan daawadaas waxaan ku xasuusinaynaa haddii aad daawado nagu cusub fadlan rukumo gambaleelka subscribe-na dheh saaxiibadan u share garay xogaha iyo macluumaadada gaarka ee halkan aan kusoo bandhigno daawadayaal warkan ayaan ku hormarayna qodobka ugu horeeya ee xog buuxdo waxaan kaga hayaa mas'uuliyiin ku loolamaya xilka adag ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shakhsiyaadka hadda loo badinayo in xilkaas ay qaban doonaan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waxa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay soo buux dhaafiyeen qaar kamid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin doonaya in loo magacaabo xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya Muqdisho ilaa 7 qof oo siyaasiyiin isla markaana haatan ay ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay siifiyadooda waxayna la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kala hadlayeen arinta la xiriirta magacaabista in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka janaalkana waxa uu helay magacyada qaar kamid ah xubnaha doonaya inay noqdaan gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood rajo wanaagsan ka muujinaya in xilkan loo magacaabo dadka ay ogaatay janaalkana oo doonaya in xilkan loo magacaabo doono gudoomiyaha gobolka aan duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kala yihiin magacyadooda Yuusuf Cabdi Guure Yuusuf Jaala ninka la yiraahdo agaasimiye hore hay'adda duulista saadaasha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqo joojin uu ku sameeyay wasiirka duulista hawada Soomaaliya wasiir Omar balse ninkan waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Yuusuf Jaala ayaa wajahaya oo kaliya diidmada qeyre oo ay weligoodba aysan heshiis noqon ninka labaad ee xiga waa Axmed Washington oo ah maareeyaha dekada magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu kamid ahaa xubnaha xilkan sida weyn u raadinayay isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Washington waxay saaxiibo dhow yihiin wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre sidoo kale iskuma xuma madaxweynaha Soomaaliya oo ay isku fiican yihiin waxayna isyaqaanaan muddo ka badan 40 sano ay saaxiibo ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya waana shakhsiga ugu dhow ee rajada weyn leh in xilkan gudoomiyaha gobolka loo magacaabo Ali Gacal waa agaasimihii wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliya waxa uu ka tirsanaa shakhsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo booska gudoomiyaha gobolka Banaadir Ali Gacal waa nin xilkan loo magacaabi karo oo ay dalbadeen beesha uu ka soo jeedo injineer Yuusuf sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo janaalkana la hadlay Umar Qaansa waxa uu ahaa gudoomiyihii hore degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa la sheegay ninkan in sidoo kale ay dalbadeen in xilkan loo magacaabo beesha uu ka soo jeeday gudoomiyadiisa waana beesha labada qof ee beeshaas ay wadato Umar Dhagay oo ahaan jiray gudoomiyihii guddiga doorashada waxa uu kamid ahaa shakhsiyaadka sida aadka ah u loolamaya isla markaana hami weyn ka qaba in xilkan loo magacaabo beesha uu ka soo jeeday Umar Dhagay waxa ay ku cabanayaan in weerarkii xarunta gobolka Banaadir ay ku waayeen dadkii ugu badnaa ee beeshooda ka soo jeeday mas'uuliyiin ahaa xilalna ka hayay gobolka Banaadir sida darteed ay dalbanayaan in Umar Dhagay loo magacaabo xilka gudoomiyaha gobolka shakhsiga kale ee ku jira aan xogtan aan ku helnay waxa kamid ah Salaad Cali Jeelle oo ah la taliye sare oo ka tirsan
madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxa uu Salaad hore u soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Salaad waxa uu ka tirsanaa shakhsiyaadka raadinayay xilkan oo sida weyn hadda loolanka ugu jira inuu helo shakhsiga kale ee ugu dambeeyaan xilna ayaa waxa uu yahay Cabdi Jiinow Caliso waa gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waxaana saaxiibo dhow ay yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegaa inuu ka tirsan yahay shakhsiyaadka ama waxa la sheegaaba inuu ku jiro shakhsiyaadka sida waalida xilkan u raadinaya Cabdi Jiinow iyo waliba Salaad Ali Jeele rajo wanaagsan kama qabaan in xilkan loo magacaabo sababtoo ah saami qaybsiga beelaha ayaa waxay ku weyn karaan in kuraasan loo magacaabo hadii ay dhacdo loo magacaabo waxa dhici karo qaladaad ku saabsan wax qaybsiga sidoo kale Cabdi Jiinow iyo waliba Salaad Ali Jeele ayaa kuraasta ay ku leeyihiin dawladda waxa ku fadhiya wasiirka amniga ee Soomaaliya suurtagal ma ahan in wasiirka amniga ay saaxiibo dhow yihiin wasaaraha Soomaaliya in markan xilka laga qaado madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu qaabilay qaar kamid ah beelaha deegaanka gobolka Banaadir waxaana la sheegay in qaarkood uu kala hadlay qorshihiisa ku aadan magacaabista gudoomiyaha gobolka ana duqa magaalada Muqdisho ilaa hadda lama oga waxyaabaha ay isla meeligaan iyo waliba natiijada ka soo baxday kulanka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu la qaatay beelaha Soomaaliyeed iyo waliba shakhsiyaadka markan sida weyn u raadinaya xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir asaashay shakhsiyaadka hadda aan helnay magacyada idin soo bandhigna ayaa kuwa sida weyn u doondoonaya in loo magacaabo xilka gobolka Banaadir waase ogaan doonaa wixii macluumaad ah iyo warbixino ay ka soo kordha isla channel-kan ayaan saaxiibal idinku soo gudbin doonaa warka la xiriira gobolka Banaadir intaanaan ka bixinay waxaa soo baxday janaalkeena weel xog iyo macluumaad ku saabsan in gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir laga joojiyay safar ay ku bixi lahaayeen dalka dibadiisa waxaana la sheegay in shakhsiyaad kamid ah looga baqdin qaba inay ku lug lahayn weerarkii 24 July ka dhacay xafiiska gudoomiyihii gobolka Banaadir oo yiriis uu ku dhintay hase yeeshee xubno ka tirsan maamulka ayaa hadda beeninaya warkan maamulka gobolka Banaadir waxay beenin warar maalmahanba aad loo hadalahayay oo ku saabsan xaqiiqda waxyaabihii looga hadlay kulankii ka dhacay 24 July ugu dambeynna qarxu ka dhacay in ku gariideen xubno badan oo mas'uuliyiin oo ka tirsan maamulka weerarkan oo aad u qabsaday baraha bulshada ayaa waxa lagu sheegay in kulankaas ahaa kulan ku saabsan ama looga hadlayay arrimaha amniga gobolka Banaadir dadka warkan faafiyay ayaa badankood su'aalo ka keenay sababta kulankaasi ugu baaqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka ee arrimaha amniga Maxamed Cabdullaahi Tuulax maadaama amniga ay tahay howshiisa waxa laga hadlay xilligan ay helay arinta amniga gobolka waxaase su'aal la iska weydiinayaa in Tuulax lala xiriiri in wax uu ka ogaa qaraxa sidaas darteedna kulanka uga baaqday hase yeeshee maamulka gobolka warkan waa ay beeniyeen waxayna sheegeen in arinta ay tahay waxba kama jiraan afayeenka gobolka Banaadir Saalax Dheere Ninkra ayaa qoraal uu soo saaray oo raacsan jadwalka kulanka waxa uu sheegay ama uu soo bandhigay cadeymo la xiriira 24 weerarkii ka dhacay gobolka Banaadir ee shirkii xilligaasi looga hadlayay wuxuuna sheegay in shirku ahaa shirka tubtiga gobolka Banaadir oo amnigu soo qayb ka ah darteedna aysan ku jirin xubnaha hadda lagu tuumayo inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay gobolka Banaadir ugu dambeyn waxaan eegnaa warbixintan ugu dambeysay maxaa ka soo baxay kulanka Axmed Madoobe iyo waliba taliyaha ciidanka Ethiopia ee AMISOM ay ku wada qaateen Kismaayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa goor dambe saxaafadda kula hadlay waxa uu ka warbixiyay shirkii maanta ay ku yeesheen madaxweynaha Jubbaland ay ku weelinayeen xubno ka tirsan gobolka xubno ka tirsan taliyaasha iyo waliba saraakiisha ugu sareysa ee maamulka madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in kulanka labada dhinac looga hadlayay sidii la iskaga kaashan lahaa ammaanka isla markaana ay si mideysan loogu qaadi lahaa howlgallo cusub oo deegaanada laga sameynayo iyo in sugidda amniga doorashada ay la wareegi doonaan Maxamuud Sayid Aadan wuxuu intaas ku daray in madaxweyne ku-xigeenka in la isku raacay in si wada jir ah looga hortago wararka been abuurka ee lagu baahinayo baraha bulshada wuxuuna sheegay in AMISOM ay la wareegi doonto dhammaan howlka doorashada ay ka dhacayso madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in AMISOM ay sheegtay in wax faragelin aysan ku sameyn doonin doorashada Jubbaland ee la filayo in dhamaadka bishan ay dhacdo wuxuuna sheegay in AMISOM ay ka qayb qaadanayso waa kan madaxweyne ku-xigeenka oo shirkiisa jaraa'id oo qabtay idin soo gudbin doona markan sida la socotaan maanta waxaa qabsoomay shir madaxda AMISOM taliyaha guud ee ciidamada AMISOM ku-xigeenadiisa
taliyaasha qaybaha sector 2 sector 6 saraakiisha booliiska AMSOM iyo dhammaan taliyaasha ciidamada ay ka soo qayb galeen shirkaas oo dhinaca kalena golaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha hogaaminayay shirkaas ajandihiisa wuxuu ahaa ajande amni buu ahaa ma ahayn mid siyaasadeed wuxuu ahaa ajandihii amniga oo AMSOM iyo golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ay ka wada shaqeynayeen qodobo fara badan baa looga dooday xaalad badan baa la qiimeeyay inta badan arrimaha amniga waa ogtihiin hadii miidiyaha sax kuma aha laakiin arrimaha aanu u soo bandhigayna ummadda oo shirka ka soo baxay qodobadan baa kamid ahaa waxa lagu heshiiyay amniga guud in la dardar geliyo la dagaalanka argagixisada sidii hore baa la iskaga kaashan jiray taasoo ka wada qayb qaadanayaan AMSOM ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee naga caawin jiray qodobka labaad waxaa la isla soo qaaday arrimaha doorashooyinka waxay madaxdii AMSOM cadeeyeen inay ayagu wax faragelin ah ku yeelan horena ugu yeelan kuna yeelan doonin arrimaha doorashada mandate-koodana ayna ka mid ahayn sida awgeed been abuurka propagandada baraha bulshada qabsatay inay tahay wax kama jiraan marka waxaa lagu heshiiyey in si cad loo beeniyo arrintaas aan bulshadana lagu kicinin mandate-ka AMSOMna ay ka mid ahayn AMSOMna ay doorashada ka socoto dowlad goboleedka Jubbaland wax faragelin ah ku yeelanaynin qodobka saddexaad waxaa lagu heshiiyey in la joogteeyo shirkii amniga ee bilaha ahaa ee ay qaban jirtay dowlad goboleedka golaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland kana soo qayb gali jireen sektarada kala gedisan oo AMSOM iyo saaxiibada kale shirkaas oo runtii xagga ammaanka horumar weyn iyo gacan ku lahaa bilihii dambena mashquul laga galay in dib loo joogteeyo oo si muhiim ah shirkaas oo wax ku ool ah loo soo celiyo qodobka afraad waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xil saaro ciidanka booliiska Jubbaland iyo ciidamada AMSOM ee booliiska AMSOM ee ka howlgala Jubbaland iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland inay arrimaha doorashooyinka ammaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan bal isla gartay qodobka shanaad waxaa la isla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadawga la isku hor fadhiyo in ay ka wada howlgalaan ciidamada AMSOM ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland oo maaragtay iskaashanaya inay ayagana mandate-koodu yahay inay cadawga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha la isku hor fadhiyo ay la dagaalamaan halka ammaanka magaalooyinkana ay naga gacansiinayaan booliiska AMSOM ee ciidanka booliiska Jubbaland horeba ay ugu shaqeynayeen inta arrimaha doorashooyinka socdaan booliiska AMSOM ay naga gacansiiyaan qodobadaas lagu heshiiyey waana la qaybsaday shaqadii waxaana joogteyn doonaa bilaabaynaa inaan soo celinno shirkii bilaha ahaa si propagandadana meesha u baxdo iskaashi dhab